askariga liyu booliska isla markaana ay gabadha calmatay baraha bulshada Soomaalida sida weyn u haysatay ayaa ugu dambeyn maanta waxa dhacay meherkooda askariga oo furunta ka sugnaa isla markaana boor leh ayaa lagu arkay baraha bulshada iyadoo markaasi maalin kadibna gabar kamid ah gabdhaha deegaanka ay sheegtay in askarigaasi uu hibeysay nolosheeda maanta waxa dhacay meherkii iyadoo markaasi Cabdiyare iyo Muna ay ahaayeen labada qof ee calmaday meherkooda halkaas uu ka dhacay magaalada Mombasa oo ahayd goobta meher ka dhacay ayaa waxa halkaas gaaray aruuska inta uu galin magaalada Mombasa waxa si weyn ugu soo dhameeyay bulshada qaybaheeda kala duwan iyadoo aan loo kala harin soo dhaweynta Cabdiyare oo ah askariga liyu booliska ah ee markaas gabadha calmatay waxa halkaas ka hadlay qaar kamid ah mas'uuliyiinta deegaanka Soomaalida oo kamid yahay wasiir ku xigeenka madaxtooyada deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale wasiir ku xigeenka waxbarashada deegaanka Soomaalida alhamdulillah wa kafa wa salaamun ala ibadihi alladhina istafa wa ba'd farxad bay noo tahay dhamaantanna hogaaminta dawladda ee kala duwan ee meesha fadhida hadeen nahay bahda ciidanka bahda hogaaminta maamulka ee kala duwan odayaasha salaadiinta dhamaantanna farxad ayay noo tahay inaan ka soo qaybgalno maanta guurkan sharafta badan ee la soo yiri guurkan waxa guursaday waxa weeyaan dowladda Soomaalida jilku ka yahay waxa weeyaan waa ciidamada shufadiisa hoosana liyu boolis baa la yiraahdaa guurkaasi waa guur waxa weeyaan aan kulligana isugu dhannahay madaxtooyadii ilaa iyo waxa weeyaan ciidanka qaybiisiga mas'uuliyadda xafiisyadii kale waa dowladda meesha wax ka maqan uusan jirin ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ka dhigo guri lagu nasto oo lagu nagaado oo barwaaqaysan oo barakaysan inta la kaliya u rajeynayna بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير. سنة صعدنا ما تحفلت جمعي وعروس كان جمعي وكدوا يهين عروسدي أنا حفلتي هو وحاجونا عروسكي هالجنة فتح إياه هالجنتو مرا. كنتي هالجنك قبل عسمان هذا كذا شيء تاريخ بيموجسي ديري قليم بيموجسي ثم الكسوماليات مرك هالجنك اللي بيجرو تاريخ ده إلى هاي أمريكا قارتين تاسو waxay muujisay marka ciidankii inay moraal iyo dhiirigelin dheeraad ah helaan taasina waxay sahashay marka nimankii argagixisada ahaa ee deegaankeena ku soo duulay inay si weyn u durduriyaan halkeen aan maanta fadhina xafladiisuna wuxuu ahaa halgamaa daayar oo waqti muujiyay firfircooni iyo karti iyo taariikhda deegaanka lagu yaqaano iyo kasnimada taariikhda deegaanka lagu yaqaano taas marka waxay ka dhigtay inuu halgan ama arooska maanta uu noqdo aroos halgan oo taariikhiya oo ku magacaabi karno arooska sarreeyay saadaraadee cid kasta oo ka soo qayb gashay ama soo dhawaashay oo ugu horeeyo Ibraahim Qaadir iyo rayadkii faraha badnayd ee hirgelisay hawlaha sanadka oo dhacday oo mahadcelinayna anoo ku hadlaya magaca taliska ciidanka xoogga gaarka ah ee dowladda Soomaalida waxaan marka hore sharaf noo ah inaan ka soo qayb galno xafladda walaashay Muna iyo walaalkay Cabdi waxaan leenahay waad mahadsantihiin salaadiinta iyo garaadada oqaasha iyo odayaasha iyo mas'uuliyiinta heer deegaan oo hogaaminaya wasiir Cabsaaq iyo janaalka muxuu ahaa Janaal Abdulxakiim waxaan leenahay aan ku faraxsanahay insha Allah kulli taliska ciidanka xoog gaarkii hada kadib meel walba oo macluumaad waxa way gabar joogto iyada lafteedu waan booqan doonaa waxaan leenahay ciidamadu waa sida rag oo waxa way insha Allah waan sii xoojin doonaa isdhexgalka aan leenahay bulshooyinka deegaanka ku sugan Ibrahim Cabdiqaadir oo ahaa qaban qaabiyaha ayaa sidoo kale halkaas ka hadlay waxa weeyaan sugay amniga deegaankayga amnigiisa sugay kuwa ku seexanayno nabad soo toosin marka kuwa inaan garab istaagno oo hiil iyo hooba la garab istaagno way naga go'day Cabdiyare kaliya anaga wadan dhalinyaro deegaankana nooguma joogayso askari walba oo liyu booliska oo gabar calmada waxa weeyaan gabaatigiisa iyo gurigiisa iyo wixiisa anaga nala qoys waa qabiilkayga liyu boolis qabiilkiisa anaga ku biirnay qabiil liyu boolisna daan ku biirnay saasaan anaguna iyaga ku garab joogaynaa haddii ilaahay yidhaahdo waxaa farxad noo ah in maanta hawshaan muddada soo wadnay ee soo abaabulaynay ka dhalinyaro ahaan in maanta meherkii dhacay oo waxa weeyaan Muna iyo Cabdiyare maanta ay qoys yihiin raas xaflado waaweyn iyo weyn cajiibana waan u samayn doonaa haddii ilaahay yidhaahdo Cabdixakiin Gamaadiid Universal TV Jijiga